waxaa halkani oo ah bartamaha magaalada Boorame iyo hareeraheeda waxaa saaka ka dhacay mudaharaad ballaaran oo ilaa haatan ka socda hareeraha iyo suuqa magaalada Boorame kaasi oo looga soo horjeedo dil loo geystay taliyo ku-xigeenkii ilaalada xeebaha magaalada Lowyacado allaha u naxariistay Khadar Xabeeb oo kamid ahaa saraakiisha ugu wanaagsan dhanka maamulka ciidanka taliyaha ayaa waxaa dilkani u geystay mid kamid ah ciidamadiisii waxayna maxkamadda ciidamada darajada koobaad ee gobolada galbeedka Soomaaliland shalay ku xukuntay ninkii dilkaasi geystay dil toogasho ah haddana shacabku waxay saaka gebi ahaan baxeen badiba wadooyinkii soo galayay suuqa magaalada Boorame kuwaasi oo gubayay taayiro isla markaana ku dhawaaqayay sida uga xun yihiin dilkaasi boqolaal qof oo iskugu jira dhalinyaro haween odayaal waxgarad aqoon-yahan iyo qaybaha bulshada ayaa mudaharaadkani ka qayb qaadanayay waxayna dhawaq dheer ku marayeen wadooyinka suuqa magaalada Boorame intii uu socday mudaharaadkani ayaa waxa uu dhaawacyo kala duwan soo gaadhay qaar ka mid ah mudaharaadayaashii